cashuurtan haddaba iminka GST-ga ee dadka khalkhalka badan gelisay waxaa ku jira jaahwareer badan baa ku jira xataa xukuumadda lafteedu ama wasaaradda maaliyadda iyo saraakiisheedu marka ay doonayaan cashuurtan inay dadka fahamsiiyaan waxaa ku jira iyaga laftoodu inaanay concept ka haysan ayagu inaga measurement nooma aha way meena gelin karin oo sheegay inay dadka u diraan islaanta miyiga joogta ee dukaanka waxa ka iibsanaysa in lagu dhaado cashuurta AI ka soo eeg waxay muujinaysaa gaab u dhaxeeya dawladda iyo dadkeedii marka halkaas iyadoo horta waa faham la'aan ba ku jirta weyn say u sheegayeen way shirkad bay hadal hayeen dadku in badan ay leeyihiin shirkad baa cashuurtii maamulaysa waxyaabo badan baa la isla dhex maraya shirkadda iyada maxaad xog ka haysaa iminka cashuurtan wasaaradda maaliyaddu soo saartay oo aad sheegtay in markii hore ay ahayd cashuur bulshada laga qaadayay bal sidee bay u saameynaysaa ganacsatada laftoodii iyo dadkii shacabka ahaa in dawladdii nidaamkaa u dhisnayd in ay dadkii kacdoonkii dadku u bedelo oo dadku halhays ka dhigtaan no tax without representation haddaanan dawladda matalaad ku lahayn cashuur ma bixinayno kulanti habboon daawadayaal idil ahaantiinba meel walbaa naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo stuudioga telefishinka caalamiga ah ee Shaahi TV aan kula yeelanayno xogayaha maaliyadda ee xisbiga mucaaradka ee ka Mustafa Barkhad Dembiil ah bara sare oo kamid ah barayaasha jaamacadaha dalka sidoo kale ah falanqeeya siyaasadeed oo arrimaha siyaasadda Soomaaliland si weyn u falanqeeya waxaan halkan ku lafagureynaa arrimo badan oo ku saabsan dawladnimada iyo waxay tahay dawladdu waxyaabaha looga baahan yahay inay bulshada siiso iyo sidoo kale cashuurta GST oo hadal hayn weyn ka dhalisay gudaha Soomaaliland taasi oo wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland dhawaan soo saartay isla markaana ay bulshadu siyaabo kala duwan ay uga falcelinayeen waxaan halkan ku falanqeyn doonaa aniga iyo xogaye Barkhad in cashuurtaasi aan la fagurno isla markaana ay bulshadu barnaamijkan wax badan ka faa'iidi doonaan xogay marka hore soo dhaweynaya soo dhaw ugu horeyn bal markaynu bulshada u sharaxayno dawladnimada iyo waxay tahay dawladnimadu si kooban dawladnimadu waxa weeyaan waxa jirta dawladnimada casriga ah ayaa la yiraahdaa dawladnimada casriga ah waxa weeye waa dawladahan dimuqraadiga ah ee inta badan waxa weeyaan mudaxileedkooda ku kasbada ogolaansho iyo rabitaan dadweyne maadaama ay ku yimaadeen rabitaan dadweyne waxay bixiyaan adeeg dadweyne bixiyaan adeega waxa kamid ah tusaale ahaan adeega arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyo nadiifa iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay kamid yihiin wadooyinka iyo dalxiiska iyo waxyaabahaas oo dhan dawladnimada waxay dadku inta badan ku haystaan wax loo yaqaan cadaalad iyo dhaqaale abuur samayso shaqo abuur kamid yahay dawladnimadu waxa la oran karaa waa isha dadka u abuurtaa nolol faham aqoon iyo ilbaxnimo dawladnimada casriga waa noocaas kala soo koobo way dad badani waxa aad u hadal hayeen cashuurtan ay dhawaan soo saartay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee GST-da bal ugu horeyn si barnaamijka aynu u iba furno maadaama dawladnimadii iyo waxyaabihii ay bulshada ay siin lahayd aad ka warantay bal cashuurtaas waxa ay tahay iyo cashuuraha kale ee Soomaaliland shacabkeeda laga qaaday dawladdu ka qaataa waxay noqonayaan aad baad maasan tahay horta cashuuruhu waxa weeyaan waa rukunka ugu weyn ee ay dawladdu ku taagantay Soomaalilandna waxay leedahay nidaam cashuureed oo runtii shaqeeya oo functional ay leedahay cashuurtan haddaba iminka GST-ga ee dadka khalkhalka badan gelisay waxaa ku jira jaahwareer badan baa ku jira xataa xukuumadda lafteedu ama wasaaradda maaliyadda iyo saraakiisheedu marka ay doonayaan cashuurtan inay dadka fahamsiiyaan waxaa ku jira iyaga laftoodu inaanay concept ka haysan oo dee waxaad arkaysay iyaga oo le markii la weydiiyey lagu yidhi muranku adkaaday dood maahan habeenadan daawanayay dee waxaan arkayba mid kamid ah saraakiisha wasaaradda maaliyadda oo leh haddaad beentay moodaysaan dee AI-ga ka soo eega AI-gu dee waa aalad ku shaqeysa maskax macmal ah macnaha waxay taasi muujinaysaa faham la'aanta iyaga laftooda ka haysata cashuurtan
waxa weeyaan GST-ga laakiin GST-gu laakiin waxaa tiri wasaaradda maaliyadda oo kale waxay tiriyaan AI-ga ka eega haddii ay bulshadii u sheegtay tusaale ahaan ay tiri AI-ga soo idinku fududeeyo mar haddaydan hadalkan ku fahmeyn AI-ga ka soo eega deedna idinkoo wixii fahansan dabeetana ka hadla miyaana taa lafteedu aanay saxayn cashuur marka la jidaynayo dee dadka AI-ga loo mataqaanaa maaha meesha laga soo eego xeerar baa jira cashuurta leedahay waxa weeyaan system cashuureed oo inoo degsan baa jira buug qoran baa jirta sharci baarlamaanka maray baa jira dee waxaasaa inoo measurement ah AI-gu dee measurement inooma aha waxaan ka eegi karno maaha eega dee wax kastaa ku jira nidaamka cashuuraha ee Sweden baa ku jira nidaamka cashuuraha ee Canada ku jira nidaamka cashuuraha ee Mareykanka ku jira marka nidaamkeena cashuuruhu dee AI-ga kuma jiro AI-gu inaga measurement inooma aha dee inay dadka u diraan islaanta miyiga joogta ee dukaanka waxaa ka iibsanaysaa in lagu dhahdo cashuurta AI ka soo eeg dee waxay muujinaysaa gaab u dhexeeya dawladda iyo dadkeygii marka halkaas iyadoo horta waa faham la-aan baa ku jirta weyn say u sheegayeen haddaba waxaan doonayaa bal inaan cashuurtan GST-gu waa cashuur dawladdu qaado oo ay dee weligeedba qaadi jirtay markaa waxaa isweydiinaya maxaa buuqa keenay iyaga laftoodu cashuurtii jirtay bay ka dhiganayaan reference tu kale oo khalkhal badani ku jirana oon doonaya dadka inaan xoogaa bal siday ay tahay aan u fasirana way doonayaan dadka inay kusoo rogaan oo ka dhaadhiciyaan inay bixiyaan shaygu marka uu ka soo dego dekeda uu soo dego ama dekeda ka soo dego ama airportka ka soo dego ama dhulka ka soo galo customku dowladda ka soo gale cashuurta waxa lagu qaadaa customka ugu horeeya ee shaygaas ka soo galo ayaa lagu qaadaa waxa kaloo la qaadaa cashuurta customka caadiga ah ee qofka loogu ogolaado alaabtan inuu wadanka la galo iibin karo waxaa jira cashuur in waxaa jira alaab in la cashuuraaba aan sharci ahayn dee wixii sharci darraa in la cashuuraaba sharci maaha khamriga ka mid ah dee iyo wixii kale dee waxa weeyaan dee drugs marka alaabtan inay sharci tahay dalka la gelin karo lagu iibin karo tayadeedii la baaray waxaasoo dhan baa ayaa dee horta loo ogolaadaa cashuur baa laga qaadaa cashuurta customka waxaa laga qaadaa cashuurta iibka ama waxa loo yaqaano sales tax waa cashuurtan GST-gu cashuurta iibka waa laga qaadaa waxaa laga qaadaa hadduu shaygu tusaale ahaan ka soo galay dekeda cashuurta dekeda laga qaadaa waxaa laga qaadaa khidmadda soo dejinta laga qaadaa waxaa laga qaadaa adeeg waxa loo yaqaano lacag loo yaqaano waxa weeyaan adeega customka waxaa laga qaadaa waxa loo yaqaano scanning shayga marka dee wadanka la soo galayso scan baa lasoo mariya scanka laftiisa lacag baa saaran oo qofka laga soo qaadaa oo qofka soo alaabta soo iibsanayay dekeda ama ka soo qaatay ama soo badajistay waxaa laga qaadaa cashuurta shaabadan loogu dhufanayo marka qofkii alaabtii la siinayo iyada lafteeda waa laga qaadaayo waan arki karnaa wax qoran oo waxa weeyaan ay dawladdu ka qaado waxaa jirta wax laga qaado oo la yiraahdo cashuurta wasaaradda ganacsiga iyadna waxbay ku leedahay waxa kaloo jirta wax ku qoran oo profit tax la yiraahdo ama cashuurta macaashka tiro male intaasoo cashuura marka qofka laga qaado cashuurta maamulka jirteeduna cashuurta daryeelka jirta intaasoo cashuura marka qofkii laga qaado qofkii markuu alaabtii soo qaato uu suuqa ku iibinayo cashuurtii laga qaaday cadadkay doontaba ha leekaato macaashkiisii iyo wixii shayga uu ku taagnaa intiiba wuxuu saaraa macmiilka markaa macmiilku sidaasuu horta cashuur bixiye u yahay waxaa la yidhaha cashuurtaa markaa qofkaasi bixinaya oo ku bixiya dekeda input tax baa la yidhaha cashuurtii shaygii uu maalgeliyey qofkaasi wixii kharash kaga baxayey isagaa bixiyey uu maalgeliyey uu soo qaatay hadhowna uu sii iibinaya haddaba cashuurtan soo korodhay waxa weeye qofkii macmiilka ahaa marka uu alaabtii tusaale ahaan waxaan soo qaadanayna xabad caana oo malaaciya ama sharaaba ayaan soo qaadanayna markuu shaygaasi dekedu ka soo galay ama madaarku ka soo galay ama customkaluba ka soo galay cashuurtiisina waynu soo sharaxnay inta nooca cashuura ee qofka laga soo qaaday iibiyihiina wuxuu saaray macmiilkiibuu saaray muwaadinka ahaa muwaadinkii saasuu markaa cashuur bixiye ku yahay shaygii oo laiskugu wada geegeeyey macal cashuurtii macal faa'iidadii qofkan ay ku taagnayd alaabta iibinaya uunbaa aayar isaga la yidhaha lacagtiisa waa intaa uu bixiyaa qofkaasi kama murmo ma idhaahdo intaas cashuurta iga raabiya taa dee ma jirto cashuurta dawladda way qaada waa cashuur jirta haddaba cashuurtan dambe waxa weeye
marka isla shaygii aad cashuurtiisu marka horeba kuugu jirtay qiimaha iibka ya ayaad markaad iibsanayso ku daraysaa cashuur cashuur ku daraysaa sidaa inay u yidhaahdaan oo cadna xukuumaddii ama wasaaraddii maaliyaddu waxa weeyaan uma muuqato oo waxaad moodaa waxa weeyaan dee sababtay dib ugu dhigayeen laha waan hakinay inkastoo dee waan hakinay iyo waxaas dee u malaynayaa dee dadku inaan xilligan diyaar cashuurtaa wahayne waxa weeyaan taasay doonayaan dadka in laga qaado iib kastoo dhaca waxyaabahan iib ahayn ba jira haddii tusaale qofka ay lacag u tahalay bangi oo bangigiisii lacagta uu kala soo bax lacagta isagoo iska lahaa oo ku iibsadiisa loogu diro ninka ganacsadaha ah dee cashuur baa ka go-aysa lacag badan ba weliba ka go-aysa wax kasta oo dee merjan lagu diraa maaha iib wax kastoo dadku isku diraana iib ma aha midda kale waxaa jirta cashuurtani waxay ku dhacaysaa waxyaabihii quutal daruuriga ahaa adduunyada waa laga ilaaliyaa in quutal daruurigu qaaliyoobo oo waxa weeyaan sixirka maciishadu kaco oo sarifku kaco waxaasoo dhan laga ilaaliyaa dawladdeenu waan ognahay oo waxa weeyaan deeqo badan oo dibadda ka iman jiray iyo waxyaabo badan oo way iska go-een wacyiguna uu iska adag yahay dadkuna waa sidaas un markaa waxaa jirta xisbiga waddani markii uu bulshada codka ka doonayay dee waxaynu dhegeysan jirnay iyagoo le dadka danyarta ee maanta ay doonayaan inay islaanta markay roodhida dirtaan dee ay cashuuraan marka ay caanaha iibsataan ay rabaan inay cashuuraan beerkaba markay iibsanayaan ay cashuuraan bogos nacnaca xataa hadday iibsanayaan cashuur balas waa kuwii ay shalay lahaayeen waxaanu ka dhaafaynaa cashuurta haddaan nimaadno dee hadday iyagu ay galeen baabuur cadcad oo eesiyele iyo xafiisyo qurux badan dadkii aad shalay ay lahaayeen cashuurtaanu ka dhaafaynaa halkii bay fadhiyaan weliba xaaladdan way kasii adagtay sidii hore xaaladdu siday markay shalay saa lahaayeen maanta way kasii adagtay marka iyadoo xaaladdiina sidii ka adag wixii shalay a ballan qaadeen baa horta laga doonayaa waxaa laga doonayay dee inay waxyaabahaasoo dhan ay ka rumeeyaan waxaa ka mid ah haddaan ku soo qodob kale ku daro in saboolnimada ay hoos u dhigayaan 5% hadday xukunka ku guuleystaan waxyaabihii saboolnimada jidinaya baa socdo dagaalada ka mid ah sixir bararkan baa ka mid ah saboolnimada qayb ka yihiin waxaa kaloo ka mid ahaa shaqo la-aanta inay 25% hoos u dhigayaan waxaan loo fahmi karaa sanadkiiba 5% inay shaqo la-aanta ay hoos u dhigayaan shaqo la-aantii baa sii kordhaysa qofkii oo shaqo la-aani ay hayso hal adeeg oo bilaash uu ku helaa aynay jirin waxbarasho bilaash kuma helo caafimaad bilaash kuma helo biyo bilaash kuma helo wadooyin qurux badan oo cashuurtiisa xataa tii hore looga sameeyay xataa ma jirto dadki iyagoo arkaya markaa cashuurtoodii horeba meel alla meel ay ka buuxisay iyo wax ay dalkii wax uma tarin dadkii wax uma tarin iyadoo intaa midna aan wax u qaban markay dadkii arkayaan haddana cashuur kale lasii saaro xilligan dee awood ay dadkaasi ku qaadaan horta cashuurta ma laha waxoogiina dee wuxuu noqonayaa un dee mar horena waan sheegay majaajilo iska noqonaya iminka cashuurtan wasaaradda maaliyaddu soo sheegtay ee soo saartay oo aad sheegtay in markii hore ay ahayd cashuur bulshada laga qaadayay bal sidee bay u saameynaysaa ganacsatada laftoodii iyo dadkii shacabka ahaa dee dadkii shacabka horta cashuurtan dee imika qaabkan ay rabaan in loo qaado waa loo qaadi jiro dhan waa loo qaadaa haddaa la qaadaa sidii caadigii baa loo qaadaa way jiraan waxyaabo aan dalka gudihiisa ka soo baxa oo aanan custom soo marin waxyaabahaasoo kale way cashuuri karaan qaabkay dee waa cashuurayaan markaa ama dee j s d ha saaraan ama isaga laftoosu dee meelba kasoo galaa waxyaabaha hargeysa lagu dhex sameeyaa jirta waxyaabaha qaar magaalada sida warshadaha biyaha iyo sharaabka iyo waxaasoo kale dee waa waddanka lagu warshadeeyay custom ma soo marin isagu qaabkay cashuurayaanna dee waa qaab waxa weeyaan dee laisla yaqaano say u cashuurayaan oo waxay soo gelaysaa dee cashuurta wax soo saarka in dee la cashuuro waana inta badanna way ka jaban tahay cashuurta ka timaada dibadda si loo dhiirigeliyo qofka waddanka gudihiisa wax ka soo saaray oo isaguna maciishadii u jabiyo si alaabta dibadda ka imanaysa markaa ay u yaraato oo dadku kan gudaha joogay maalgashiga sameeyey uu ganacsigiisa uga helo fursad oo alaabta Thailand ka imanaysa ama Holland ka imanaysa ana suuqa uga saareen dawladuhu policy bay ka samaystaan kaalaftiisa si loo dhiirigeliyo waxyaabaha imika jira waxa ka mid ah caanaha masalaha ka yimaada ama 200 iyo caanaha ka yimaada Holland baa deesku qiimaa waxa laga yaabaa inay ka jaban yihiin ba kuwa ka yimaada waxa weeyaan dibadda
sababtu waxay noqonaysaa waxaan xasuustaa sheeko nin waxa weeyaan nin baan caana ka iibsan jirnay kadibna maalin baa koobkii caanaa markaa 1,000 shilin ku daray markaasaa ku noor hebelow maanta ma kun baad ku dartay markaasuu yidhi adduunka miyaynaan la socon sawka Ukraine dagaal ka socda macnaa eeg baqaras dadkii dabeecad xun xataa behaviorkii dadka xataa isbedelay waxay arkayaan dagaal baa meel ka dhacaya dawladdii baa markaaba wax kordhinaysa waxyaabaha waxay ka mid tahay dadka cashuuro lagu kordhiyo wax loo maciishada lagu qaaliyo ka mid tahay markaa dabcigii dawladda dadkuna qaateen way markaa ninkaas wuxuu leeyahay yani caanahaas bay qaateen dawladdii baa iyaduna wax kordhin doontee aduna waxaaga imiga sii kordhiso marka waa kan kula dee Ukraine buu dagaal ka socdaa caanahan iibsanayna waa caano dee waxa weeyaan Hargeysa agteeda laga soo lisay way Ukraine iyo caanahana waxba iskaga xidha way markaa imika tusaale ahaan marka la eegayo cashuurtan oo kale waxaa la sheegaa in cashuurtan marka hore waad iga sheegay in kastamada lagu qaado cashuurtii oo qofkii ganacsadaha tusaale ahaan isagu uu bixinayo lacagtii shacabkii uu saarayo isaga aanay wax dhaqaale ay ka baxayn oo mar walba cashuurtu ay shacabka saaran tahay markaa cashuurtan imika la soo kordhiyey iyaduna ma shacabku bay saaran tahay mise waa mid ganacsatada u gaara ma shacabkii bay saaran tahay si toos ah waliba u saaran tahay waxa la yiri shaygii aad iibsatay cashuurtiisa bixi shaygan aan iibsaday cashuurtiisu iibkii ku jirtaa iibka ayay ku jirtaa markaa qofka daynta waxaa soo cashuuro laga soo qaaday ayaa haddana dee halaagii saadkiisa loo socdaa waxa kaloo iyaduna jirtaa in merchankii lacagta lagu dirayay lacagtii electronic ahayd ama digitalka ahayd la dirayay in ay iyo cashuurtaasi saameynayaan dadku 0.01 lacagii hadday ka go'ayso waxa uu ku iibsanayo it was very sensitive wuxuu ka qabaa arrintaas waxa weeyaan aad buu qofku uga jirdiidaa inta badan cashuurtaas waxay saameyn ku yeelanaysaa hadday sii socoto oo shirkaduhuna ay dawladda u noqdaan customs lacagta u ururiya dadku inay lacagtooda la soo baxaan shirkadaha kala soo baxaan qofku de waayo lacagtii uu diray bay cashuur ka go'ayso Soomaa lacagta digital lacag ka go'ayso qofku markaa muxuu ka jeceliyay shaygii $50 ah uu soo iibsanayay markuu soo iibsaday cashuurtu ka go'aysay inaanay cashuuri ka go'in iyadoo cadaan oo soo qaato ganacsiyada kaga iibsado marka meheradihii waxay de qaban doonaan lacag haadha qofkii ganacsadaha markuu markaa alaab soo iibsanayay awal waxa laga yaabaa dad lacagta Telesom u taalo u buuxda oo dadkuna aad ugu aamineen ayuu de la soo bixi jiray ku soo adeegan jiray de waxa laga yaabaa waxa inta ka dambeeya waxa laga yaabaa bangiyada kala dhigto lacagtii bangiyo kale inuu dee dhigto hadhowna iyadoo cadaan shirkadihii iyo dadkii is aaminayna inay iyaguna culuubaan baa laga yaabaa marka arrintaasi dawladda un saameyn kuma yeelanayso laakiin xataa shirkadaha laftooda saameyn bay ku yeelanaysaa marka shirkaduhu waa inay arrintaa laftooda iyagu ay policy iyo waxa weeyaan ay qorshe ka yeeshaan waxaa kaloo dhici karta dadku maadaama uun dee sheegnay in wacyigu adag yahay oo noloshu adag tahay oo shaqo la'aani jirto oo qofkani mushaarka uu qaatay ma kordhin cashuurtana way ku korodhay waa meesha ay ka imanayso noloshu inay sii adkaato waxaa markaa dhacaysa dadku inay dee iyaga laftoodu kacaan cashuur la kordhiyey adduunyada taariikh bay ku leedahay waddanka Mareykanka oo intaani Ingiriiska ka xoroobin 1700 dawladda Ingiriiska waxay beeraleydii iyo dadkii muruqmaalka ahaa ku soo rogtay cashuur caradii dadku ay ka qaadeen iyo mudaharaadkii iyo kacdoonka ay ka sameeyeen Ingiriiska wuxuu ku waayay inuu Mareykan si maamulo macnaheedu waxay taas soo dadajisay in Mareykanka xorriyad qaato waxa jirta Faransiiska boqolkiiba 2 isugu jira wadaadada kaniisadaha madaxda kaniisadaha iyo maamulka dawladda ama madaxda oo boqor ahaa ayaa waxay sidoo kale iyaguna cashuur ku soo rogeen dadkii cashuur ku soo rogeen waa qarnigii 18aad ilaa qarnigii 17aad cashuur ku soo rogeen arrintaas waxay sababtay in dawladdii nidaamka u dhisnayd in ay dadkii kacdoonkii dadku u bedelo oo dadku halhays ka dhigtaan no tax without representation haddaanan dawladda matalaad ku lahayn cashuur ma bixinayno taas maxay keentay in systemkii dhannaayay dawliga ahba isbedelo oo loo bedelo nidaam dimuqraadiya shacabku xildhibaano soo doortaan xildhibaanadaas iyo check and balance awoodo dawladeed oo isku dheeli tiran inay yimaadaan kacdoon dadweyne oo cashuur lagu soo kordhiyey ayaa keenay innaga waddanka dhan hal maalin hadduu kacdoon ka dhaco arrintaa lagaga soo horjeedo
dee waddankuba ma awoodo dowladduna ma awoodo marka waa arrin sensitive dowladdu hadday doonaysa cashuur inay soo kordhiso dadkeenu waa dad goba nidaam saxa oo wacyigelintiisii leh oo ku qancintiisii leh oo cilmiyeysan ha u maraan tani wacyigelin mala miya maawaadigi berigii allah u naxariistee sooraan uu noolaa iyo jawaan iyo dee waxaa jiri jirtay ruwaayadaha laga samayn jiray dadka lagu qancinayo in cashuurtii la kordhiyey iyo waxa lagu qabanayo iyo faa'iidada ay leedahay waxaan oo dhan dee wax dhan oo wacyigelina jirta laakiin imika dee waxa weeyaan cidda cashuurta ku dhawaaqday waa xafiis ka tirsan wasaaraddii maaliyadda weliba qaabka loo hadlayay hadalka loo soo gudbinayayna dee aanu ahayn qaab waxa weeyaan degan oo cilmiyeysan aanu ahayn oo qaarkood dee saan horeba u sheegnay aad arkaysay marka ay kasoo xidhantay doodii ay yidhaahdeen dee AI-da kasoo eega bal haddaad beentii ay moodeysaan way laakiin iyagu waxay lahaayeen weliba cashuur baanu dhidhnay markii hore $5 ahayd iminkana aan ka dhignay 2.5 halkaasaan doonayaa haddaba dadka inaan fahamsiiyo way waxay yidhaahdeen cashuurtii 5% eeg waxa la isticmaal dadka wala marin habaabinaya waxa la isticmaalayaa cashuurtii 5%-ga ahayd ee customka lagu soo qaadayay taa waa la qaaday dadkiibaa waxaa lagu leeyahay cashuurtii 5%-ga ahayd iska daayo tiibaa la ilowsiinaya cashuurtii 5%-ga ahayd ee GST-ga ahayd ayaanu 2.5% ka dhignay isku darka 5% iyo 2.5% waa 7.5% waxaana baarlamaankuna wuxuu golaha wakiiladuna waxay ansixiyeen 5% 2.5% meela ka timid ku qoran tahay ummadda ha u sheegaan in loo sheego hadday soo xalaalaysanayaan dee nidaam soo marinayaan oo taana dee shacabku dee golay doorteen oo golahaasi kasoo doodayaan kusoo fasaxayaan dee waa meesheeda laakiin cashuur lagu leeyahay iibsaduhu markuu alaab iibsadee ka go-aysa dee meel ay ugu sharciyeysan tahay horta ma jirto meel ay ugu qoran tahay ma jirto way shirkad bay hadal hayeen dadku in badan ay leeyihiin shirkad baa cashuurtii maamulaysa waxyaabo badan baa laisla dhex maraya shirkadda iyada maxaad xog ka haysaa horta shirkadaasi waa shirkad waxa weeyaan say sheegayaan xildhibaankaa sheegaya filayaan in xildhibaan oo dood ku jiray shirkadaasi waa shirkad financial technology arrimaha ka shaqeysa nidaamka maaliyadda digitalka ah waa shirkad Europeana niyow shirkad aan imika Telesom iyo Samtel dadka iskale ee maamule ee mulkiilayaasha ka wada naqaana wadadaan garanayno maanta hadday cid wax u geystaan dee waa cid meesha loo raaca la garanaya waa dad muwaadiniina oo weliba ruqsad ganacsi haysta waa kuwa lacagaha noo qabanayeen ku aaminayna ee noo haya shirkad aan nidaam sharcina soo marin oo dee aan maan ragiyada baarlamaanka laga ansixinay inay lacagta ay noo qabanaysa financial institutionskeena soo galayso dee meel kuma arag midda kale waxaa jirta dee dowladnimadu waa sir dhaqaale waa sir ciidan waxa weeyaan waa sir communication oo wadamada adduunyadu maxay codes u leeyihiin codes waxa weeyaan wadan walba furu leeyahay communicationkiisu ama waxa weeyaan contactkiisu furu leeyahay maxaa loogu sameeyaa waa sir dalkaasi leeyahay oo gaara waa albaabkaaga waa furiyaad ku roganaysaa albaabkaaga shirkad dibadda ka imanaysa oo weliba aanu saan maqlay shirkadan waa Yurub baa laga leeyahay laakiin wadamo badan oo Afrikaan ah ayay uga shaqeysaa arrimaha maaliyadda waxa kale oo aan ku maqlay xog dad badani ay waxa weeyaan sheegayeen in shirkadani ay mar hore financial institutionska Soomaaliya ay ka soo qayb qaadatay ama ay wax kala dejisay ama wax kala shaqeysay nidaamka waxa weeyaan finance-ka waxa weeyaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya inay qayb kamid ah wax kala qabatay inay u hirgelisay inaanay u hirgelin ma hubo laakiin waa shirkad barayfada oo adduunyada meelaha qaar ka shaqeysa laakiin wadamada sharciyada leh ee aqoonsiga haystay la aqoonsan yahay haddii shirkadaasi wax xumayso dee maxkamadda adduunka ka dacweyn kara loo soo xiri karo inagu haddii aan shirkadda dhacnana cid noo soo xiri kartaa ma jirto hadday ina dhacdana cid noo soo qaban kartaa ma jirto marka horta shirkad noocaasi dalka inay dee la sooba hadal qaado la serverless bay waxa weeyaan dee ay hadday run tahay dee shirkadaasi jirto dee waxa baxaysa
wax loo yaqaano waxa meesha ka baxaya wax loo odhan jiray business privacy shirkadaas waxay ogaan kartaa nidaamka maaliyadeed ee dalkeena nidaamka ganacsi ee dalkeena waxaas oo dhan bay ogaan kartaa marka khatar bay day ku tahay xaggii aan waxaan ka eegayaa xaggii privacy iyo amnigan ka eegaya way ugu dambeyn guntii iyo gabagabadii su-aasha ugu dambeysa maadaama shacabka cashuurtan ay dhib weyn ku hayso sidaa sheegtay iyo ganacsatadaba fariinta ugu dambeysa aad dirayso ha noqoto wasaaradda maaliyadda ha noqoto shacabkii ha noqoto ganacsatadii somaliland maxay tahay anigu waxaan si cad u sheegayaa waxa weeyaan oon xukuumaddana u sheegayaa dadku inay idinka sugayeen nolol ayaanay idinka sugayin nolosha inaad ku adkaysaan dadku halkii bay idin fadhiyaan codkii ay idin siiyeen waxay rabaan inaad ugu beddeshaan horumar shaqo abuur dhaqaale maciishada oo jabta sarifka oo jaba waad ogtahay maanta sarifka halkay ugu yimaadeen waxay dhahaan 15% baan hoos u dhigaynaaba manifestada buuggooga ugu qornaa iminkana waxa weeyaan 20% buu kor u kacay iska dayna 15% hoos u dhaco 20% ayuu kor u kacay bangiga laftiisi ayaa ka mid ah sariflayaasha oo waxa weeyaan lacagtii isagu dee sarifaya waxaa kaloo jirta iyaduna oo jirta dalka inaana wax haba yaraatee wax mashaariic horumarineed aanay ka socon goormaa kugu dambeysay wasiir hebel dhagax dhigaya mashruuc ama xadhiga ka jaray labadaas sane lasoo dhaafay laakiin malaa dowladdu beryahan xagga way jiraan mashaariic badan oo la dhagax dhigay dee yaa dhagax dhigo yaase mataqaanaa xadhiga ka jara yaa mashruuca fuliya wasaaraddu keliya wasaaradaha waxaa la siiyuun mushaarkooga iyo shidaalkooga iyo waxaas unbay shaqo ku leeyihin buuggii u dambeeyey soo saareen ama maalidii miisaaniyaddii u dambeysay hal wasaarad oo mashruuc u qoran yahay oo mashruuc fulinayso headsley ma jirto mashaariicda dhan madaxtooyada loo skeyay wasaaraddu markay mashruuc rabto inay fuliso waa inay madaxtooyada u qorato waxa weeyaan qorshaheeda kadibna madaxtooyada ciday doontay siin kartaa lacaga badan oo doolara oo dibadda ka yimaada ama dubay ka yimaadaan oo meelo kale ay ka yimaadaane iyaguna sidaan xogta ku hayno ma maraan nidaamka bangiga toos uma tagaan ee madaxtooyada laga maamulaa marka nidaamkii dhaqaale wuxuu noqonayaa nidaam extractive waa nidaamka inta badan faqriga abuura extractive waxaa kaloo jirta oo doonaya inaan ku daro waxyaabaha ay dowladdu gabtay waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga iyo maaliyadduba ay gabeen waxaa ka mid ah ganacsigeenu ma kala xadaysna qofka containerka Thailand ama India ama China ka soo iibsada ayaa boqoska nacnacee u dambeeyay iibiya taasi maxay noqonaysaa markaa in yaroo ka mid yihiin bulshadii noolaata inta u badanna baktido dukaamada maxay la kacaan waxay la kacayaan bakhaarkii ka soo iibiya alaabta oo ahayd inuu dukaankaniisana wax sii saarto uu macaasho dadkana xaafadahana adeega halkoodii ugu geeyo isaga laftiisii bakhaarkii ka soo iibshay baa tafaariiqdiina iibinaya isaga iibinaya marka waxyaabaha u bannaan bay ahayd in la kala xadiyo ganacsiga la kala xadiyo oo la adigu tafaariiq laa tahay adigu container kaad keentaa adigu jumlad laa tahay adigu saalo dee loogu xadeeyo dee waxa weeyaan nidaam dhaqaalo oo financial crisis noocaasa ayaa meesha ka jira marka intay dowladda waxa weeyaan dayacaa badan oo meesha ka muuqdo dadka horta waxaan si cad u sheegaya inaan cashuurta qaadi karin maanta cashuurta ma qaadi karaan haddii dadku dowladdu ay arrinkaa ku dhiiratana anigu waxaan aaminsanahay waxa weeyaan inuu iman kara kacdoon bulsho in shirkadaha ganacsiga ee isgaadhsiinta ee hawshan la sheegaya inay la wadaan wasaaradda maaliyaddana dadkuna inay iyadana ay waxa weeyaan tallaabo ka qaadi doonaan waxa laga dadku in lacagahooga la baxaan baa suuragal noqon karta marka crisis waddanku maanta ma awoodo dadkuna cashuur ma awoodaan nolol bay dadku idinka sugayeen nolosha inaad ku qaaliyeysaan idinkamay filayn dadka hoos u eega cashuurta dadku kordhinaysaan nidaam iyo system soo mara xilliga ugu habboon aad iyo aad buu mahadsan yahay xogayaha maaliyadda ee xisbiga kaah mudane mustafa barkhad dembiil ah ka tirsan bahda waxbarashada somalilan oonu ka falanqeynaynay arrimaha siyaasadda somalilan iyo cashuurta g s t oo hadalhayn badan ka dhalisay gudaha somalilan tan iyo intii ay soo saartay wasaaradda horumarinta maaliyaddu barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed daahir ah shaahi t v ayaad ka daawanaysaan waxaan kaga tegaynaa aniga iyo mustafa barkhad dembiil xogeyaha maaliyadda ee xisbiga kahba
salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu aad baa mahadsanta xogay waa mahadsantahay